milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa soo saaray qoraal rasmi ah oo ku cadeynayo inuu iska wareejiyay mas'uuliyadda maamulka kooxda Chelsea maadaama uu ka mid yahay bilyaneerada reer Ruushia ee gacan saar kala leh madaxweynaha Ruushka xayiraadda dhaqaale ee la duldhigay. Abramovich ayaa sheegay in mas'uuliyadda maamulka kooxda uu ku wareejiyay maamulka jamciyadda tababaracada Chelsea taasoo ka dhigan in wax walba oo la xiriira maamulka iyo dhaqaalaha kooxda ay maamuli doonaan mas'uuliyiinta jamciyadda tababaracada Chelsea kuwaasoo ayagana lacagta faa'iidada ee wax soo saarka ugu qaban doona bulshada. Qoraalka uu soo saaray wuxuu ku yiri ku dhawaad muddadii 20 sano ee aan ahaa milkiilaha Chelsea waxaan mar walba doorkayga u arkayay inaan ahay qofkii ilaalinayay oo xanaaneynayay kooxda. waxay shaqadu ahayd inaan Chelsea ka dhiga mid guuleysata sida ay maantaba tahay iyo inaan u dhismo mustaqbalka dhow. waxaan mar walba qaadanayay go'aano ay dani ugu jirto kooxda. weli waan u heelanahay hawshii aan qabanayay waana sababta aan maanta kooxda ugu wareejinayo mas'uuliyiinta jamciyadda tababaracada Chelsea. waxaan aaminsanahay inay haatan yihiin kuwa taagan booska ugu habboon ee lagu eegi karo danta kooxda, ciyaartooyda, shaqaalaha iyo taageerayaasha kooxda Chelsea. kooxda Chelsea ayaa maalinta bari garoonka Wembley ee magaalada London kula balansan finaalka koobka Carling Cup-ka naadiga Liverpool iyo macallin Jurgen Klopp. saameyn ma ku yeelan kartaa arrintan ciyaartooyda Chelsea iyo macallinkooda Thomas Tuchel oo inta badan la ogyahay in ay si weyn isfahan dhaxmaray tan iyo markii uu kooxda yimaaday isagoo la qaaday koobka FIFA World Cup iyo Champions League isla markaana kaalin saddexaad kaga jira kala sarreynta horyaalka Premier League.